anigoo ah xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore gudoomiyaha xisbiga UPD maanta halkaa waxaan u nimiday inaan ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka intaba aan gaarsiino dhacdadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho midda koobaad inaan ka xunnahay siday wax u dhaceen midda labaadna waa cambaareynayna aan rabnaa dadka Soomaaliyeed inaan cadeyno dhacdadaasi dawladnimo raad kuma laha madaxweyne Sheekh Shariif madaxweynaha jamhuuriyadda xilliga ku meel gaarka ay ka saaray dalkan nin oday ah oo maxaan ku raay xushmad badan dadka iyo jamhuuriyadda dhexdeeda ku leh in shalay dhaqanka noocaas saas loola dhaqmaahay si meel ay sax ku tahay ma jirin qaanuuniyan sax ma aha dadnimana sax kuma aha iyo maxaan ku raay dawladnimo intaba sax kuma aha shalay ficilka airportka Muqdisho ka dhacay sharcina ma dugsana dawladnimana ma dugsana dadnimo kalena ma dugsana qodobka 22aad ee dastuurka ku meel gaarka ah faqradiisa koobaad wax kale marka laga soo tago dhaqdhaqaaqa xorriyadda qofka muwaadinka uu loo tilmaama iska daa qof mas'uuliyad soo qabtay oo madaxweynaha jamhuuriyadda soo noqday oo dalkan duruufo adag oo dhib badan ka soo saaray halgan adag iyo naftiisa horay khatar ugu soo geliyay oo ummad dhexdeeda karaamo ku lahoo mudan in si gooni loo weyneeyo waa halkeeda waxaan cod dheer marka aan ku diidannahay ficilka noocaas dawladnimadaan jecelnahay qaanuunkaan jecelnahay dastuurka ixtiraam badan iyo weyneyn badan u haynaa dalkani iyo meesha uu joogo inuu hore u socdo oo dhaqaaqaan rabnaa laakiin wixii aanay dawladnimo keenaynin ka dayimayno naf una maxaan ku yiraahdaa waxayn una muxuu ahay jilcimayna ama ka aamusimayna cod dheeraan ku leenahay waxaasi khaladay ahayn waana khalad shalana khaladay ahayn maantana waa khalad berri hadday sii socdaanna waa khalad cawaaqib xumo badan ay ka dhalan karto in suurtagal tahay duulimaadyada hawada iyo hawada Soomaaliya waa garanaysaan 1995 UNISO markay dalkan ka tagtay ayaa hawada Soomaaliyana la laalay maamulkeeda loo dhiibay hay'ad 30 sano ku dhawaad ayaa hadda hay'adaas gacanta ku haysa lacagta hawada laga qaado hay'adaas qaado dadka Soomaalida ah wax weyn loogu ma qaban jirin uma madax banaaneen waxaan dadaal adag loo soo galay hawada sidii loo soo celi lahay oo maamulka Soomaaliya loo soo celi lahay wada xaajoodyo badan laga galay dawlad goboleedyada raali ka ahaa maxaan ku yiraahdaa qaybaha kala duwan oo mujtamac bulshada dhammaan raali ka ahayday in ay noo soo noqoto hawadeeda maamulkeeda taladeeda markii ugu horeysay soo noqotayna inay waxaas dhacaan waxay dib u keenay in haddana un hawada fareen ay ka baxdo ay dib u noqoto haddana macquul ma aha dadka la diiday inay dhoofaan iyo kuwa maamuladooda iyo shacabkoodii iyo humanitarian-koodii muxuu ahay gargaarkii loo fidinaya dadka la hor taagan yahay diyaaraduhu ma dhaqaaqi karaan hawada waa xirantahay la leeyahay waa kuwii shalay cod dheer cod gaaban ku yiri maxaan ku yiraahdaa hawadeena annaga iska leh naloo soo celiyo oo dawladdii maxaan ku yiraahdaa dawladda Soomaaliya ku garab istaagtay dawladnimadu shalay ma aha maanta ma aha waa ka sii horeysay shalay maantana way ka dambeynaysaa dad badan u soo istaagay in hawada waqti dheer iyo wada dheerna waa qaadatay inta jeero loo safray Canada loo tagay xarunta ECAWA loo tagay madaxda ECAWA warqado iyo dacwo iyo wax walba loo qoray si hawadan wada dheer ay soo martay maanta marka in ay dhaqanka noocaas oo hub siyaasadeed loo isticmaalayo oo kii iga fikir duwan waa ku cadaadinaya in la yiraahdo wax macquul ah oo maxaan ku raay ummadda Soomaaliyeed ay u qalmaan ma aha waana basic rights ama xuquuqda asaasiga aan sheegayna oo muwaadinka iyo deegaanka iyo dadka Soomaaliyeed ay waxay ku tahay ku xadgudub weyn marka waxaan rajaynaynaa dawladdu inay indhaha kala qaado oo ay fahamto wali waxaan rabnaa dawladdeenu inay fahamto dalkan meesha uu ka yimid meesha uu marayo meesha uu socdo dawladnimo dhameystiran maxaan ku raahdaa xuquuqdeena qarannimo oo aan adduunyada ku lahayn oo dib noogu soo noqoto aqoonsi iyo ogolaanshiyo ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda aan ka wada helno laguma daawoobayo Soomaalida waxay ku maamaadaa calool waxay ku bukata laguma daaweeyo dhaqanka noocaana shalay dalkeena ku burburay dawladnimadeena ku burburtay maanta daawo inaan ka jirino oo dawladda muxuu ay ku xoogeysanaysa dawladda ku muuqanaysa la dhaafna dawlad intaan ka xoog badan shalay waxaan wax lamid inta la timid dadku diideen war maanta waa soo kabanayna waa soo noqonayna wixii shalay dhaqankii xumaayo shalay la dilay cudurkii shalay nagu dhacay maanta inaan haddana cudurkii aan doondoonanahay macno badan ma sameynayso arrinta waxa soo hartay maamul goboleedyada dalkan nidaam federaal ah qaatay
2004 shirkii ugu dambeeyay dibad lagu qabto in bagaasi lagu qabtay ayaa dadka Soomaalidu isla soo ogolaadeen nidaam federaal in la qaato 2012 kongareeska xamar lagu qabtay ee dastuurka hadda jira ee ku meel gaarka lagu ansixiyay dadka ka qayb galay ergadii oo jamhuuriyadda oo dhan iyo dadka Soomaaliyeed isaga timiday waxay isla ogolaadeen dalku inuu nidaam federaal yeesho nidaamka federaalka wuxuu ka mid yahay qaababka xukuumadda dalka ka jiro adduunyada ka jiro aayad quraana ma aha waa la bedeli karaa waa laga guuri karaa laakiin sidii shalay oo ku yimid oo dadku ay ku doorteen looga guuri karaa dadka Soomaaliyeed inay isu tagaan yiraahdaan federaalku waa anfici waayay ee mar laakiin aniga jecel iyo aniga neceb iyo anoo ila quman yahay ana awoodeydu ku kordhinayo anoo ku dhima ma galo deedel ma galo waa rabitaanka dadku ku yimiday waxa looga noqon karaa waa laga noqon karaa laakiin waxa looga noqon karaa rabitaanka dadka in inta la isu yimaado Soomaaliya isu timaado federaalki waana anfici waay laakiin qof iyo xukuumad midna ma celi karaan federaalka mana diidi karaan mana hor istaagi karaan rabitaanka shacbiga waay oo ku saleysan yahay nidaamkaas dib badan loo soo maray dhismihiisa wixii laga soo maray saxaafadu aad iyo aad u ogtahay goob joogi u ahay dawlad goboleed kasta dadka Soomaaliyeed oo la isu keenay oo walaalow maxaa dhihilee maxay kula tahay adiga war ka ballan war la yiri oo loo fududeeyo ayagu ay go'aansadeen nidaamkan uu ku dhismo process socdo waaya ma dhahayo mana ku dacwoonayo boqolkiiba boqol sax yahay Soomaaliya maanta boqolkiiba boqol wax sax ma jiraan laakiin wada dheer oo eber aan ka nimid meel fiican hadda marayna aad iyo aad wax badan loogu qabsoomeen nidaamka federalismka dhexdiisa dhibaato ka jirto wax badan oo dastuurka xaqiisa ka qabya ah jira wax badan oo maxaan ku raad dadka Soomaaliyeed inay ka doodaan iska warsadaan loo baahan yahay jira laakiin maaha dheelalawga iyo dhayalka laguma bedeli karo laguma carqaladeyn karo dhibaato iyo waxaan dawladnimadii tii qaranka oo su'aal galeysay dadka deegaanada degana tashaday haday wax ka qaldan yihiin war waxaana idinka qaldan sidaan si ma ahan hal toosiyo in la yiraahdo oo la dhaxgalo oo la waxay u baahan yihiin waad garanaysaan ayagoo dadku isdirsan yahay isu imaan karin iswarsan karin dadku inta isu yimaadeen iswarsadeen nidaamka samaysteen waxba ka dhiman haday wax ka dhiman yihiin in la dhameystiro oo si nabad ah iyo heshiisiin iyo dawladuna ay fududayso dadka inay macnaha afkooda isu carfiso isu keentay walaalaysan laga shaqeeya laakiin sidaani ma aha iyo siyaabihi bariyay dhaweeta dhacayo dhan si sax ah oo maxaan ku yiraahday dawladnimadeena saacidaysa ma aha marka nidaamka federaalka ah waa sida ugu sahlan ee xukunka dawladnimada uu ku baahi karo oo meel walba ku gaari karo laakiin haddii aan ku fikirno askariga booliiska loo yaqaan ka shaqeynayo iyo midka raas gambooni ka shaqeynayo iyo midka raas caseer ka shaqeynayo halkana xamara laga bedelayaa dawladda dhexe bedelayso gabadha umulisada ay maxaan ku yiraahdaa baar dheer hooyada joogto umulinaysa ama maxaan ku yiraahdaa qandala muxuu ahay qoyska jooga umulinaysa ama hiiraan halkana laga bedelayaa sheekadaas taariikhdaas waa bog soo laabmay wixii ku qornaa inaan akhrino macna ma sameynaysa boggan horyaal waxa ku qoran inaan akhrino waxna ku qoranna maanta waayo waxa loo taagayay marka si kasta nidaamka federaalka lagu guuri karaa qaabkiisa la cayimi karaa laakiin marna ma dhacayso dawladnimada aan naqiin shalay oo aan hibanayno waa midaan sheegay calool waxay ku bukoto laguma daaway dib looguma noqon karo yaanan marka lagu kadsoomin arimahaas aan leenahay waxa soo haray marka dadka Soomaaliyeed aan rabaa inaan la wadaago war intaas oo isku toosan oo dastuur qabyo ale oo maxaan ku yiraahdaa shuruucda badankeedii leh oo waxay u habaysan yihiin dadka hore u dhaqaajiya laga kari laayahay war wax ku dara wixii hore inaad jijibisaan ha ku mashquulinina waxaan 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 dhiman ee hal iyo laba kale ma ku dari kartiin fadlan ku dara aan idin kula darno war maxaan ku yiraahdaa dhinacaasa wadada naga jirta aan aadno dadka lagu kari laayahay oo ilaa iyo maanta sharciga shay ugu tumanaan la garanayo waa la garanayaa baarlamaanka federaalka guddoonkiisa la bedelay wixii ka dhacay baydhabo wixii ka dhacay galmudug waxa hadda ka socdo kismaayo wixii ka dhacay maalin walba magaalada Muqdisho iyo dadka ku nool caasimadda jamhuuriyadda sida ay u taalo dadku inay noolaalaayeen dulqaadka dadka Muqdisho ayaa dawladdan ku jirta dulqaadka iyo dawlad jacaylka ay qabaan dadka Muqdisho laakiin hoggaanka waxaan leeyahay dadka yaan laga dabageynin horena waa u dhahnay markana waa ku celinaynaa dadka maragga laga daayo inay noolaadaan oo ay dhaqdhaqaaqaan oo ay dareemaan qabkooda inuu kor jiro ha loo daayo
markii waxaas ay waayeen shalay wixii dhaca waa la garanaya maantana wixii shalay dhacay dadkii ogaayay xanuunsanaya dhowrayo wili oo la warmaya war meeshii shalay uma noqon karno war wixii shalayna ma anfacaan laakiin wax walba xuduud ay leeyihiin hoggaanka waxaan kula ballamaynaa kula dardaarmaynaa dadka in aanay ku geynin meeshii ay waxaan nidaamkan federalismka iyo dalku inay tashadaan wuxuu u yahay isbuunyo u dhaxayso oo inay isku dhacaan ka ilaalinaysa waxyaabaha dadku ay ku kala duwan yihiin dowladnimada federalismku waa isbuunyo isku dhaca iyo xanuunka iyo jugta kala ilaaliso oo qolo walba gooni ugu yaraan intii jirka dhan oo wada xanuunsan lahay qayb ka mid ah haddii jirka xanuunsan tahay inteena kale inaan u gurmano kismaayaa dhibaato ka jirtaa maahano war aan aadno annagoon dowladda ahayn maanta aanan hoggaanka ahayn dadaan u dirnay odayaalaan u dirnay niman siyaasiyiinaan u dirnay waxa ka socda meesha inay dhex galaan wax badanna waa ka qabteen laakiin doorkii dowladda ka maqan dowladdu iskuma dayin haddii kismaayo wax ka qaldan yihiin in wax la saxo laakiin dowladdu mar walba dabkay muxuu shidaal kusii shubaysay dabkay shidaal kusii shubaysay in holcu intii hore kasii dheeraado oo kasii waxayso ilaa iyo wixii shalay dhacay ay muxuu ahaay ay soo gaarto waxaan rabnaa intaas waaye aragnimaha mugaan leenahay marka maanta dowladdeena maxaa lagu aamini karaa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed aniga aragtida aan qaba la wadaago xitaa waxa dowladda lagu aamini kara waa soo yaraanayaan maalin walba mustaqbalka ummaddan in lagu aamino maalin walba xuduudda ay lagu aaminaada kalsoonida ay dowladdu qabto maalin walba waa soo yaraanay maalin walba waa soo yaraanay maalin walba waa soo yaraanay dowladnimada iyo sharciyada dowladnimaduna waxay xoog leedahay hadba inta kalsoonida dadku ay qabaan oo dowladda ay ku qabaan oo hoggaanka ay ku qabaan intay ballaaran tahay oo weyn tahay ayaa hadba ay la eg tahay sharciyadda iyo dowladnimada muxuu ahaay dadka Soomaaliya dowladdeenu ay yeelan karto marka waxaa walwal badan aan ka qabnaa walaac aan ka muujinaynaa taasi inay maalin walba dib u soo dhacayso soo yaraanayso oo soo waxaysmayso dhaqannada aan macnaha lahayn oo dadka in laga dhex shaqeeyo aflagaadeynta caayida maxaan ku iraahdaa waxa ay dowladdu ay ku bixiso maxaa qarashaadka iyo waxa ay maanta shacabka Soomaaliyeed in aanan muxuu ahay madaxdu aanay dhaqdhaqaaqi karin ma muhiim in loo sheego mase wiilasheena ayagoo dalka difaacayo ku dhintay shalay iyo daraad ee qaarkood meydkooda wili banaanka yaalla ayay tahay dadka in lagu mobilize gareeyo kuwii dhaawacayna aan daaweyn kuwaasna aan reerahoodii iyo ayaga aan muxuu ahay waxayna ayaa muhiim ah dowladdu maxay uga shaqeeylaan waxaas maxay u arki lahayd u aadi lahayd muhiimadda ay leedahay hebel ma dhaqaaqi karo hebelna ma bixi karo hebelna ma hadli karo hebelna ma yeeli karo intay leedahay dadkan waa hadlayaan waa dhaqdhaqaaqayaan waa soconayaan muxuu ahay qaanuunka iyo nidaamka ayagoo ilaalinayo marna aan ku xadbinayna annagu la xajacla badan dowladnimada naga hayso qataraan u qaadanay risk badan u marnay wax badan aan muxuu ahay culays ahaan soo aqbalnay maanta dastuurka aan maan walba ku celinayn dastuurka aan mar walba ku celinayn waa qabyo waa run inuu qabiya laakiin adeero gacaliya shalay asigaan ku kala baxnay asaan ku meel marnay si aan cilad iyo ceeb u imaaninaan annagoo joogno dowladdii aan qabkeenna iyo wixiina aankeen aan gaabinay si aan u qancino dadka kale inay dowladnimada ku qancaan shalay markii meesha lagu doortay madaxweynaha la isugu imaanayay nidaamka meelay ka dugsaneed ma lahayn baarlamaanka dhexdiisa la isku dooran karaa baarlamaanka hala joogo waa dhihi karna dadka qulubtooda iyo waxaad ilaalinaynay iyo muxuu ahay ra'yigooda in badanoo dadka siyaasiyiinta dalka joogta ah waxay rabeen muddadii waa gaari weynay hala sii kordhiyo muddada waxa lagu daro inaan iska sii joogno oo lagu daro waa jecleen cid nagu qabsan kartay iyo cid noo diidi kartayna ma jirin dhaqanka dowladnimada suuban in la ilaaliyo teeram hadduu jiro teeramka dowladdaani ifafaalaha ka muuqdahay waa inay dastuurkan ixtiraam u haynin dastuurka haddaan ixtiraam u haynin teeramkan ixtiraam uma hayso waxaan u sheegaynaa in teeramka hadduu dhammaado uu dhammaaday waxyaabaha hadaaqa oo laga dhex sheegaayo ayaga yay waqti badan isaga dhumina Soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rabitaankiisa ay ku shaqayn jirtay dadkuna waa ka yimaadeen oo rabitaankooda ayagoo ku shaqayn kara rabitaankooda meel iska soo dhigeen kuwii shalay dagaalamayay oo ciidamada haystay oo madaafiicda ridaya ayaa magaaladan jooga dalka dhan jooga kuwii shalay dagaalamayay oo madaafiicda ridaya ayaa maanta waxay leeyihiin war heedhahaya dastuurka aan ilaalino war dastuurka ha lagu dhaqmo war dastuurka ha la ilaaliyo midaan shalay wixii dhacay ogeyn maanta inuu yidhaah maya dastuurka lagu dhaqmi maayo anigaa muxuu ahay waxayna macquul maaha madaxdu shacabka markay ixtiraamaan ayay ixtiraam helayaan qaanuunka markay dhowraan
ay dhowrma helayaan ayagana la dhowriyaa shacabka hadday ixtiraami waayaan ixtiraam ma helayaan qaanuunka hadday dhowri waayaanna dhowris muxuu ah ma helayaan waxaan mar kale cod dheer aan ku celinayaa dowladda federaalka ah iyo hoggaankeedu xukuumadda iyo madaxweynaha oo shacbigu ay doorteenba sida ay wax ku wadaan sax ma ahan waddadaas inay beddelaan waddada ay haayaan meel xunay ku dhammaataa qar dheeray ka dhacdaa oon laga soo noqon karin waayo aragnimaan u leenaha waa soo joognay dalkan 30 sano dowlad la'aanta ayaan soo joognay wixii dhacayoo dhan shalay siday noogu muuqdaan ay noogu muuqdaan weli ka jooga haddaa adigu ka maqnaydeen dalka odan jooginina war annagaa soo joognay waddadii lagu dhumay waa waddadan ha qaadinina ka leexda dadka ka daaya maragga iyo cunaqabataynta iyo dhibka dadka ka daaya tahdiidka iyo maxaan ku idhahda xorriyadda dadkaani waa dul qaateen waxa ay maanta u dul qaateen wax badan oo ka mida looma dul qaadanayn shalay laakiin maanta dadka maadaama dhibaatada soo arko laakiin de wax walba xaday leeyihin xadkiyaa laga bixin rabaa ha ka bixinina oo dhibaato inta ka weyn yaanay noo imaanin dowladnimadan taageersannahay dalku inuu dowlad yeeshaan rabnaa deganaanshiyahaan rabnaa dal kale ma qabno baasboorro kale ma qabno daaro kale adduunyada kuma lihin meeshaanaan ku dhalanno ku korno wax ku baranno ka soo shaqayno weli inaan joogno ka shaqayno rabnaa laxa jeclaa naga hayso meelan anigu dalkan hadduu xumaado meel kaloon aada ma aqaano in ku beddesho war ninkaad meel kaloo aada lahow dalkaan nooga cayaarin malaayiinta soomaalida dalkan joogtana meel kale ma qabaan adeero haddaad meel kale qabto adigay ku jirtaay laakiin dalkan iyo degaankiisa iyo dadkiisa ha ku cayaarin karaam xumo iyo sharaf xumo iyo taarikh xumo adna yaanay kaa raacin oo weligeed aan ka hari doonin aad iyo aad ayaan mar kale waxaan uga xunnahay wixii shalay dhacay madaxweyne sheekh shariif waxaa lagu sameeyey astaan iyo fariinay dadka soomaaliyeed oo dhan u tahay qof kastoo soomaali ah oo muwaadin caadi ah muxuu fili karaa marka odayaashii qaranka ee dalkani asiga oo 22 sano marna dowlad la'aan ahaay marna dowlad ku meel gaar ah ka soo saaray iyo kuwii ka dambeeyay dowladnimadii xamar iyo iskool bulisiyo ku koobneeday inta baahiyay jamhuuriyadda afarteeda gees geeyay haddii aanay dowladnimada dhexdeeda ixtiraam ku lahayn muwaadinka caadiga ah iyo hooyada caadiga ah suuqa bakaaraha yaanyada ku gadanayso ama suuq bacaad maxaan ku idhahdaa mooska ku gadanayo maxay sugayaan waay war rajo xumaad wadaan rajo xumada joojiya waddada aad ku joogtaan waddo saxa ma aha ilaaliya dadka hana loo turo aad iyo aad u mahadsantihiin dadka soomaaliyeed mar walba waxaan kula dardaarmayaa nabad ilaalinta nabadda dulqaadka ay muujiyeen waa ku ammaanaya ha sii muujiyeen laakiin xuquuqdooda ha ilaashadeen xuquuqdooda ha ilaashadeen lama aamusi karo lamana caburi karo dadku xuquuqdooda ha ilaashadeen si nabad ah oo nabadgelyo ku jirto ha u ilaashadeen laakiin yaana yeelin in muxuu ahay la abuse gareeyo oo maxaan ku rahaa dastuur qaynuun la'aan in lagu dhaqo qaanuun la'aan in lagu dhaqmo yaanan la yeelin marna yaanan la yeelin laakiin haddana nabad waxa aan rabnaa nabada ummadaha adduunku waa aragteen cod iyo nabaday wax ku doontaan madaafiic ma ridaan ma dilaan qarax iyo balaayo iyo muxuu ahaa dhib kuwan argagixisada ah nabadiidka ah noogu filan colaad kale iyo dagaal kale ma geli karno laakiin codkeennoo midaysan aan ku hor istaagaynaa wixii la dhibaayo codaan ku hor istaagaynaa talaan ku hor istaagaynaa waddadaan soo istaagaynaa mayaan leenaha mayaan ninkii yidhaahda ma aha inuu dembi galay marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed nabadda soomaaliyey nabadaan mar walba ku celcelinayaa waxaan ku celcelinayaa soomaaliyey xaqa aad leedahayna ilaasho ha ogolaanin in lagugu tacadiyo oo xuquuqdaada sharcigaas iyo qaanuunkaas wuxuu xaqa uu ku siinaya ilaasho oo midii maxaan ku ihahdaa diinta islaamka ay ku siisay ilaasho walaqad karamnaa bani aadama ilaahay ayaa qur-aankiisa karaamkaa ku yiri qawaaniinta oo wadciga aan leenahay oo dastuurkeedu ugu weyn yahayna xorriyadda ilaalinta qofka iyo xuquuqdiisa aadanaha iyo xuquuqdiisa muwaadinnimo way caddahay adigaa lagaa rabaa inaa ilaashataan leh dadka soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi madaxweyne kismaayo awgeed ayaa loo xirxiray in diyaaraduhu ay baxaan adigu ma ku jirtaa madaxda aadaysa kismaayo maanta ma taagno kismaayaa loo xiray wax ka weynaa maanta taagan kismaayo maaha qadiyadu maanta qadiyad qaran waaye dalka soomaaliya oo dhan iyo dowladdiisa jiritaankeeda waa su-aasha taagan ishuga kismaayo ma aha marka yaan lagu mashquulin kismaayo iyo qalada inta ka dhacay iyo kan iyo qarankii soomaaliyeed maanta taagan tahay